jacaylka dhabta ah iyo midka aan dhabta ahayn sideed ku kala garan kartaa ayuu fiidiyowen ku saabsan yahay. Jacayl la'aan waa nolol la'aan. waad ku maasantahay daawashada muuqaalka. magacaygu Cabdiqaadir Nuur Asool, halkan waa iskuulka online-ka Shaqoonta. ma ku hayaa jacayl? ma ku wareertay jacaylka? ma kala garan weyday jacaylka dhabta ah iyo midka aan dhabta ahayn ama midka dhalanteedka ah? ma doonaysaa inaad ogaatid jacaylka dhabta ah iyo jacaylka dhalanteedka ah farqiga u dhaxeeyo? ma doonaysaa inaad ogaatid qofka aad jeceshahay inuu dhab ku jecel yahay iyo in kale, yacni inuu iska ciyaarayo been kuu sheegayo? haddaba mowduucan wuxuu ku saabsan yahay jacayl. muxuu yahay jacayl? jacayl wuxuu ka yimid kelmadda Ingiriisiga ee la dhaho love. waxaa laga wadaa jacayl, waana erey ka kooban 4 xaraf L-O-V-E. afartaasi xaraf mid kastaba macno gaar ah ayuu wataa oo ah macno qiimo badan. mid haddii aan u sheegno ama u macnayno waa sidan soo socota. L macnaheedu waa listen oo English ah, af Soomaaliguna waa maqal ama dhageysi. xarafka O waa overlook, daryeelid ayaa laga wadaa, daryeelid. xarafka V wuxuu noqonayaa value oo laga wado qiimeyn ama qadarin. xarafka E wuxuu u dhigmaa express oo laga wado muujin, in jacaylka la muujiyo. haddaba mid kasta ayaynu sharxi doonaa. waxaynu arki doonaa sida uu ugu tarjumayo jacaylka dhabta ah. haddii aad doonaysidna inaad ogaatid jacaylkan ma yahay run mise ma ahan, ma yahay dhab mise waa dhalanteed, waxaad fiirisaa oo keliya xarfahan aan soo sheegnay macnahooda. haddii aad macnaha ka weysid jacaylkaasi ma ahan mid dhab ah. aynu soo qaadano xarafka L oo aanu ku macnaynay dhageysi. jacaylka dhabta ah waxaad ku garan kartaa qofka markuu ku jecel yahay wuxuu aad u jecel yahay oo aad u danaynayaa inuu in badan ku dhageysto adiga. qofkuu jecel yahay in uu la hadlo oo la sheekaysto oo dhageysto, wax uu ka jecel yahay ma jiro. inuu la hadlo mar walba, hadalkiisana kama daalo. hadduu la hadlo xitaa wuxuu jecel yahay mar labaad ama mar kale ama saddexaad inuu la hadlo, waayo qofkaasi farxadiisa waxay ku jirtaa dhageysiga qofka uu jecel yahay. sidaa daraadeed mar walba wuxuu ku dadaalaa qofkaasi. qofkuu jecel yahay hadalka kama jaro. qofka markuu si fiican ku dhageysanayo oo hadalka kugu jareerin, macnaheedu waa inuu ku danaynayo. qof aan ku dhageysanaynin oo hadal kugu jarayo, kaasi kuma danaynayo, kumana rabo. qofka jacaylka dhabta haya wuxuu dhagta u taagayaa, u raaricinayaa qofka uu jecel yahay. jacaylka hadartan aad wadid ma ka heshaa dhageysasho dhab ah? si fiican ma kuu dhageystaa? si fiican ma u jecel yahay inuu kuu dhageysto qofkaasi? ma raadiyaa mar walba, ma doondoonaa mar walba inuu ku dhageysto adiga, inuu sheekadaada dhageysto? ma u bogaa sheekadaada mise isla markiiba aad hadalka bilowdidba hadalka ayuu kaa jaraa? wuxuu raadiyaa isaga inuu hadlo mar walba. aad u fiiri, waa sifada ugu muhiimsan qofka jacaylka dhabta haya. qofkuu jecel yahay wuxuu u daryeelaa si aan caadi ahayn, wuxuu u qiimeeyaa si aan caadi ahayn. mar walba wuu ka warhayaa, mar walba wuxuu raadiyaa qofkaasi caafimaadkiisa siduu yahay, inuu mar walba ihtimaam siiyo, inuu mar walba daneeyo oo wax walba u qabto. haddaba ma haysaa ihtimaam iyo daryeel? haddii aad haysatid ihtimaam, dhageysi iyo daryeel, waad fiican tahay. markaasi waxaad gacanta ku haysaa jacayl dhab ah. balse weli waxba inoo harsan. midda inoo harsana waxay tahay qiimeyn iyo qadarin. qofkuu jecel yahay wuu qiimeeyaa wuuna qadariyaa. wax kala qiimo badan ma jiraan adduunka. wax walba isaga ayaa ugu qiimo badan. wuxuu gaarsiiyaa meel sare, mana laga yaabo in uu liido oo hoos u dhigo. si kastoo ahaado qofkaasi, asagu wuxuu arkaa qofka ugu qiimaha badan. qiimeyn badan ayaad ka helaysaa qofka sida dhabta kuu jecel. haddaba haddii
qofka aad jeceshahay uu aad kuu qiimeeyo misna aad kor kuu qaado aad iyo aad kuu dareensiiyo qiimahaada iyo booska aad ka leedahay qalbigiisa waxaad ku jirtaa jacayl dhab ah. midda kale ayaa waxay tahay muujin. qofka jacaylka dhabta haya mar walba wuxuu muujiyaa jacayl. wuxuu u sheegay qofku jecel yahay mar walba dareemihiisa, kama qarsado waxa uu dareemayo. mar walbana wuxuu ku leeyahay waan ku jecelahay, aad iyo aad ayaan kuu jecelahay, la'aantaada nolosha waxba ma ahan, la'aantaada ma noolaan karo. ereyadaasi erey lamid ah ayuu kugu adeegsanayaa qofka dhabta kuu jecel. mar walba wuxuu kugula hadlaa hadallo jacayl, hadallo macaan, hadallo aad iyo aad u soo jiida qofka dareemihiisa. haddaba qofka jacaylka dhabta uu hayo waa qof mar walba kuu muujiya jacaylkiisa, waa qof mar walba kuu muujiya dareemaha uu ku hayo. haddaba midkani waa jacaylka dhabta ah. bilcagsi muxuu yahay jacaylka aan dhabta ahayn? jacaylka aan dhabta ahayn waa qofka aan doonaynin inuu ku dhageysto, qof aan jeclayn inuu kula hadlo. adi baa raadinaya mar walba, markaad raadisidna qofkaasi ma doonayo inuu kula hadlo. wuxuu kugu marmarsiiyo mar walba inuu hool hayo. codkaada ma jecla, sheekadaadana ma jecla, dhageysigaadana ma jecla. maba helisidba waqti aad kula hadashid qofkaasi, waayo ma doonayo isagaba inuu kula hadlo adiga, waayo meesha jacayl dhaba ma jiro. haddaba arrintu ma ahan hal mar iyo laba mar aad weysid, waxaan ka hadlaynaa wax isaga joogto u ah. mar alla markaad wacdid kama jecla inuu kula hadlo, kuma badanaynayo, sidoo kale kama helaysid daryeel, kuma siinayo ihtimaam. mid kale jacaylka dhaladka ah qofka kuma qiimeynayo, weliba wuu ku yasayaaba. wuxuu ka dhigayaa inaad tahay qof hoose, qof liita, qof waxba garanaynin. hadalkaagana ma dhageysanayo, ra'yigaaga ma qiimeynayo, waayo kuma hayo jacayl dhab ah. hadda waxaan filayaa in aad kala garateen jacaylka dhabta ah iyo kan aan dhabta ahayn. haddii aad ka heshay dhageysi fiican, qof si fiican kuu dhageysta oo hadalkaaga marnaba aan ka daalin, sheekadaada marnaba aan ka daalin, mar walbana u orda si uu kula hadlo, mar walbana doonaya inuu kula sheekaysto, hadalkaaga aad u dhageysta, aan kaa goynin hadalka, sheekadaada aad ugu socoto, waa jacayl dhab ah. haddii uu ku daryeelo, ihtimaam ku siiyo mar walba, kaa warhayo mar walba, ku weydiiyo mar walba xaalkaada, mar walbana la socdo oo jecel inuu ogaado, waa jacayl dhab ah. haddii uu ku qiimeeyo, uu ku qadariyo, kor kuu qaado oo ku siiyo qiimaha aad mudan tahay, waa jacayl dhab ah. haddii uu kuu muujiyo jacaylka dhabta uu kuu qabo, misna kuu sheegto sida uu kuu jecel yahay, sida uusan la'aantaada u noolaan karin, kaas waxaa la dhihi karaa jacayl dhab ah. intaas oo dhan waxaad ku dartaa haddii uu kula doonayo mustaqbal iyo guur dhab ah, oo uu mar walbana kaaga sheekeeyo mustaqbalkiina ama aayihiina guurka iyo guryaha iskula noolaan lahaydeen, mustaqbalka isla dhisi lahaydeen iyo mustaqbalka carruurta dhali lahaydeen. arrimahaas oo dhan hadduu kaaga sheekeeyo waxaad haysaa jacayl dhab ah. anigana waxaan ku leeyahay hambaliyo. waxaan rajaynayaa inaad kala garateen jacaylka dhabta iyo midkaan dhabta ahayn. waxaan ku rajaynayaa inaad la kulantid oo aad heshid, ilaahayna kuu sahlo, annaha ii sahlo jacayl dhab ah. dhammaanteen allah noo sahlo. muuqaalkeenina halkaas haynoo joogo. anigu waa Macallin Cabdiqaadir, kanaalka waa Isha Aqoonta. aaladda Facebook waxay naga daalacan kartaan Isha Aqoonta online. Isha Aqoonta waxaa ka baxay luqado kala duwan sida Turkiga iyo Hindiga. mac salaama, assalaamu calaykum.